canug yar kubadda cagta ciyaara ku soo dhex barbaaray qoys dhibaatooyin badan haystaan dhaqaalahoodana aad u liitay. hooyadiis waxay ahayd maxbuusad, aabihiisna qamriye cad. waxa uu go'aansaday in uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulo sidii uu guulaysan lahaa faqrigan ragaadiyay qoyskiisa uusan u marin dhibaatadii ay mareen waalidkiisa oo kale si walbay suuragal u tahay. inkastoo uu ciyaarayay kooxaha juniorka ama kooxaha yaryarka, lacagaha uu qaato kaliya waxay dabooli karayday nolol maalmeedkiisa daruuriga ah sida 3 waqti ee cunnada. riyadiisuse waxay ahayd inuu noqdo qof caan ah, sidoo kale wuxuu ku riyoon jiray inuu iibsado gaariga Bosch. diyaar waxa uu ahaa in uu ka shaqeeyo wax walba si uu u gaaro riyadiisa. waxa uu go'aansaday in uu tuug noqdo oo uu xatooyo sameeyo. wuxuuse ahaa mid caqli badan oo haddana kibir kor isula qaado. wuxuuse aaminsanaa inaysan jirin cid qaban karta. waxa uu bilaabay inuu xado baaskiilada, galana goobaha ganacsiga, wax walba uu xadi karana uu xado. markii ay gaartay lacagii uu xadayay lacag u goynayda gaarigii riyadiisa ahaa, waxa uu soo iibsaday gaariga Bosch ee uu ku riyoon jiray maalin inuu wado. maalin maalmaha ka mid ah, isagoo wadada saaran oo gaarigiisa isaga raaxaysanaya xawaare sarena ku socda ayaa booliis soo dabagalay. isagoon waxba ka fikirin ayuu baxsaday, sababtoo ah isla waqtigaas ayay noloshiisa dhan mugdi gali karayday, waayo gaariga wax uu ku waday xawaare aan caadi ahayn, taas oo keentay xitaa in askartii ay soo gaari kari waayeen. dhacdadan kadib wax uu kala saaray oo uu kala doortay inuu noqdo tuug kibir badan oo isla weyn iyo in uu noqdo qof guulaystay oo naftiisa ku kalsoon. wax uu go'aansaday inuu ku soo noqdo diiradana uu saaro hibadiisa, fursadiisana goorta ay albaabku soo garaaci doonto uu sugado. ficlanna maanta wax uu noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan iyo kuwooda ugu weyn kubadda cagta adduunka oo dhan. ninkan ka hadlayno waa Zlatan Ibrahimovic. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna videogeena maanta. waa walaalkiin Maxamed. nabadgelyo.